N'Golo Kante, xiddiga khadka dhexe ee Chelsea iyo Faransiiska, waa Muslim ku adag diinta Islaamka, kaliya kuma eka garoonka. Salaadaha ayuu inta badan ku tukadaa masjidka. 30 jirkan xirfadiisa ciyaareed ka soo bilowday kooxda Faransa ee Bologna ayaa habeen ka hor isagoo khushuucsan oo ragcadaha salaada ku guda jira. Waxa muuqaalkan ka duubay wiil Soomaali ah oo taageero u ah kubad joojiyihii hore ee kooxda Leicester City. Markii uu soo gutay waajibka salaada, ayuu u sheegay inuu ka mid yahay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee taageeraha u ah. N'Golo Kante, oo xushmad u muujinaya, ayaa uga mahad celiyay sida Soomaalidu ay har iyo habeen u garab taagan yihiin. Heerkii ugu fiicnaa xirfadiisa ayuu ku jiraa markan. Finaalka koobka Champions League ayuu lugtiisa ku geeyay kooxda Chelsea, halka uu xulkiisa 2018 u qaaday koobka adduunka, balse riyooyinka rumeyntooda si fudud kuma uusan gaarin. Waxa uu ka dhashay qoys danyar ah oo ka soo qaxay waddanka Mali, oo nolol ahaan u soo raadsaday caasimadda Faransiiska ee Paris. Aabihii ayaa geeriyooday isagoo 11 sano jir ah. N'Golo Kante, mas'uuliyadda qoyskooda oo sabool ahaa ayaa dusha ka fuushay. Waxa uu ku qasbanaaday inuu dhex galo kudaafadaha qashinka lagu daadiyo, oo uu kala soo dhex baxo waxyaabaha la nacay ee la soo tuuray. Waxaana uu lacag yar kaga bedelan jiray shirkad warshadaysa caagga iyo birta oo ku taalla Paris. Xiddigani waxa uu astaan sida shumacii garoomada uga dhex muuqata u yahay Muslimiinta. Waxa aad ka dheehan kartaa dhaqankiisa wanaagsan, xishoodkiisa, dabeecadihiisa iyo xushmadda uu u muujiyo ciyaartoyda ka soo horjeeda marka uu ka badiyo kubadda cagta. Sanadkii 2018, isagoo kooxda koobaad ka ah xulka Faransiiska ee uu hogaamiyo Didier Deschamps, ayuu ka xishooday inuu sawir ku galo koobka adduunka oo uu ka mid ahaa xiddigihii lugtooda ku qaaday. Goor dabaaldegii ciyaartu uu gabagabo ku dhow yahay, ayaa la ogaaday inuusan isku sawirin koobka xishood awgii. Laacibka qolka lebiska ee kooxda Chelsea looga yaqaan dheemankii buluugga ahaa, ayaa Ramadaankan isagoo sooman dhamaystay wareegga afar-dhamaadka ee Champions League, oo ay gebi ahaanba tartanka kaga cirib tireen kooxda Real Madrid, iyo kulan kale oo ka tirsanaa wareegga 35aad ee horyaalka Ingiriiska, oo 2-1 ay kaga adkaadeen kooxda Manchester City, oo ay fooda isdari doonaan kama dambaysta Champions League. Waad ku mahadsantahay daawashada warbixintan. Like saar bogga Maxamed Muuse Tarsan, siina sheer garee si muuqaalkan u gaaro saaxiibada.